waqooyi iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa markii ugu horeysay isku adeegsaday gantaalo. Kuuriyada waqooyi iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa markii ugu horeysay isu adeegsaday gantaalo iyaga oo la beegsaday xeebaha labada dal. Seoul ayaa ka jawaabtay Arbacadii 3 saacadood kadib markii Pyongyang ay riday gantaal ku dhacay meel 60 kiiloomitir 37 mayl u jirta magaalada koonfurta ee Sokcho. Militariga Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in tani ay tahay waxaan la aqbali karin oo lagu xadgudbay dhulkooda. Koonfurta waxa ay riday 3 gantaal oo cirka iyo dhulka ah iyada oo ka jawaabaysa kuwaas ay saraakiishu sheegeen inay ku dhaceen masaafo la mid ah qadka waqooyi. Kuuriyada waqooyi ayaa maanta ugu yaraan 10 gantaal ku riday dhanka bari iyo dhinaca galbeed sida ay sheegeen saraakiisha Kuuriyada Koonfureed. Waxay arrintan ku soo beegmaysaa maalin kadib markii Kuuriyada waqooyi ay ugu hanjabtay Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed dhoolatuskooda militari ee wadajirka ahaa iyadoo sheegtay in Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed wajihi doonaan caqabado xun ay la kulmi doonaan natiijada ugu xumeyd taariikhda. waxaa jira walaac laga qabo in hogaamiyaha Kuuriyada waqooyi Kim Jong Un uu diyaar garow ugu jiro tijaabadii ugu horeysay ee hubka nukliyeerka ah.